Suuradda Al-Calaq ama Iqra' waa suuradda 96aad marka loo eego tartiibta suuradaha Qur'aanka. Waa suurad Makki ah, waana suuradda ugu horeysay Qur'aanka Kariimka oo lagu soo dejiyey Nabigeena Muxammad sallallahu calayhi wasallam, waxayna ka kooban tahay suuraddan 19 aayadood, 72 erayadood iyo 281 xuruufood. Nala faham micnaha suuradda. بسم الله الرحمن الرحيم magaca Allah ayaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaarba naxariista. اقرأ باسم ربك الذي خلق akhri rabbigaa magaciisa adigoo ku bilaabaya rabbigaasoo abuuray wax kasta. خلق الإنسان من علق abuuray insaanka xinjirka abuuray. اقرأ وربك الأكرم akhri rabbigaa uu yahay midka deeqda badan. الذي علم بالقلم rabbigaasoo baray aadanaha qalamka. علم الإنسان ما لم يعلم baray insaanka wuxuusan aqoonin. كلا إن الإنسان ليطغى ha ka joogee insaanka wuu qooqay أن رآه استغنى inuu isku arkay inuu deeqtoomay. إن إلى ربك الرجعى rabbigaa xaggiisa ayay ahaatay noqoshadu. أرأيت الذي ينهى bal ka waran midka reebaya عبدا إذا صلى addoon goorta uu tukanayo. أرأيت إن كان على الهدى bal ka waran hadduu yahay addoonkaas la reewaayey hanuunka hadduu ku sugan yahay korkiisa. أو أمر بالتقوى amase alla kacabsiga hadduu addoommada amraayo. أرأيت إن كذب وتولى bal ka waran kan u diidaya uu beeniyey xaqii iyo iimaankii haddana uu ka jeedsaday xaqii. ألم يعلم بأن الله يرى miyuusan ogeyn alla inuu arkaayo. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ha ka joogee hadduu tan joojinin ka reebtoomin waan dhufanaynaa fooddaa dhufanaynaa. ناصية كاذبة خاطئة food baan dhufanaynaa oo beeniley ah oo gaftay. فليدع ناديه markaannu dhufanno ha u yeedho golahiisa. سندع الزبانية annagana waxaan u yeedhi doonaa malaa'igta cadaabta. كلا لا تطعه واسجد واقترب ha ka joogee nebi moxamedow sallallahu calayhi wasallam ha addeecin warkiisa sujuud oo dhowow rabbiga xaggiisa u sii dhowow. ugu dambayn haddii aad ka heshay muuqaalkan like sar la wadaag asxaabtaado sheer dheh hana ilaawin inaad follow soo dhahdo tiktokeena mahadsanid.